waxaan maanta joogaa Dubai xafiiskayaga ila taango ee headquarterka oo Dubai ku yaala Nasir Square waxa horeysay boosaaso ahayd iyada horeysay kabacdi inaan markaa Hargeysana branch kale ka furno dadku markii hore productigan ma fahmayn waayo waxay aad iyo aad ula qabsadeen sharaabka ka yimaada banaan saas darteed waxay nagu kaliftay inaan ku qancino dadka sharaab dalka gudihiisa lagu sameeyo muddo dhowr sanadooda aanu ganacsigaas u sabarno taas ayaa marka dadku akhiiran ay la qabsadeen haddana waxaan nahay dadka ka saaray sharaabadii banaanka ka iman jiray inay suuqa ka baxaan ayay u dhow yihiin maanta waxaan uga guuleysanay quality-ga oo aanu aad u hagaajinay waxaan anagu aad iyo aad xoog u saarnay mujtamac iyagu dhadhamaday jecel yihiin sida pineapple-ka oo kale sida mangada oo kale sida watermelon-ka oo kale aan hore loo sameyn jirin tan labaad anaga oo ka jaban oo aad iyo aad uga jaban masnacu maantaan bilownay wuxuu marayay lacag ka yar baan ku bilownay 300,000 maanta masnaca hareysay more than $2 million ayuu marayaa waxaan u dhoofinaa waxa ugu badan waxaan naga qaata Ethiopia iyo Djibouti labada dawladood aan jiiraanka lanahay aad baan ugu dhoofinaa waxaan kale u dhoofinaa South Sudan hore waxaan uga dhoofinay Nigeria u dhoofinay waxaan kale u dhoofinay Senegal waxaan u dhoofinay Guinea Bissau inta waan u dhoofinay haddana waxaan raadinaynaa suuqa Masar Egypt inaan gallo oo aanu u dirnay sambalisaan ka sugayno jawaabti iminka rajadayada hadda waxaan rabnaa inaanu South of Somalia ee Muqdisho aan tagno oo warshad cusub ka bilowno taqriiban ganacsigayagu ribixa u dhaxeeya weeye 20 ilaa 30% waan ka sameynaa profit gaaraya sida Hargeysa ha noqoto iyo kan Muqdisho ka rajeynayno Hargeysa oo kale waxa ahaa production kan soo saarnay 85,000 oo kartoon 2010 uu kaasoo ahaa 11ka waxa uu ahaa production kan soo saarnay 100,000 iminka waxaan soo saaraynaa oo targetkaygu yahay 130,000 inaanu gaadhno ilaa 2015 ka gaadhno 1 million kartoon waxaa dadka u ah halhays ila taangacab caruurtaadana si